بسم الله الرحمن الرحيم. قلب وناكسن صحافة قلبت هالكان سوق تمت waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago weerarkii saaka ka dhacay xarunta dawladda hoose gobolka Hiiraan xaruntii hore gobolka ahaa meeshii xarunta gobolka hore u haajirtay intii aan la sameeynin xarunta hadda aan fadhiyo ayaa saaka waxa weerar ku soo qaaday ciidamo staff ah madaxweynaha Hirshabeelle ama ka amar qaatan madaxweynaha Hirshabeelle saaka markay saacadu ahayd 9kii subaxnimo waxay soo qaadeen weerarkaas alxamdulillah waxba kumaysan dhiman waxay iska caabin kala kulmeen ciidamada ilaalada ka ah maxaan ku raahdaa xarunta maamulka gobolka iyo ciidamada AMISOM waxaan u mahad celinaa ciidanka AMISOM oo runtii qayb weyn ka qaatay saaka inay difaacaan xarunta hadda aan fadhino iyo xarumaha kale iyo xafiisyada dawladda oo mar walba u heelan inay ilaaliyaan madaxda dawladda waa u mahad celinaa marka kale waxaan rabaa inaan cadeeyo in mar labaad weerar lagu soo qaaday xarumaha iyo xafiisyada dawladda xaruntii hore gobolka dawladda hoose isla markaana maxaan ku raahdaa uu madaxweynuhu ciidamadii staff ku ah beledweyne joogay iyo baabuurtii gaadiidkii staff ku ah isaga gaarka ahaa aad arki kartaan masawirradooda bictureradooda iyo tuuteysan oo ay la socdaan qaar ka mid ah ciidamada maxaan ku raahdaa ilaaladu ah maanta ku duuleen halkaas alxamdulillah waxba ma nooga dhimanin ilaahay mahadiisu way ilaahay haddana dhibaatadii waa taagan tahay ciidamadiina way soo fadhiyaan labada dhinac waxay maxaan ku raahdaa waxa dhacay xabado waxa dhacay maxaan ku raahdaa shil inkastoo ilaahay uu naga badbaadiyay sida darteed waxaan cambaaraynaa weerarkaas saaka la soo qaaday oo maxaan ku raahdaa lagu soo qaaday maxaan ku raahdaa dhulkaas nabadda ah waxa kale oo baaq u diraa ciidamada dawladda ee fadhiya gobolka Hiiraan noocay rabaan ha noqdaan inay fadhiyaan meelaha ay fariisimadu ah inay ilaaliyaan amniga inay joogaan xarumahooda waxa kaloon maxaan ku raahdaa faraya ciidamada AMISOM inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo amniga ka socda gobolka Hiiraan inay si gaar ah ula socdaan waxa kaloon iyadana lafteeda aan maxaan ku raahdaa ka codsanaa media inay markasta ay la socdaan si gaar ah ula socdaan kaamarooyinka ay kula socdaan dhaqdhaqaaqyada weerarada gardarrada ah annagu sidaan sheegnay waa hadalnay halka waxa ka jira khilaaf dastuuri ah cid weerar ku soo qaaday ma jirto cid xoog ku qabsatay ma jirto cid iyada u shaqeysay ma jirto halkan waxaan isku nimid oo ku wada shaqeynaynay waan isku xushmeynaynay dastuurka haddii dastuurka oo meesha uu ka baxo waxay ila tahay waxa bilaabmaya fawdo iyo kala dambeyn la'aan sidaad ogtihiin madaxweynuhu wuxuu jibiyay qodob cad oo keeni kara inuu xilka lumiyo ama la impeach gareeyo oo ah markii uu dhacay shilkii ka horeeyay waad ogtiin cornel booliiska inuu ku dhintay iyadoo laga duulaayo iyo markii uu sameeyay 6 gudoomiye gobol uu muddo hal sano ah uu ku bedelay iyadoo fudeedkaas iyo dulqaad la'aantaas laga duulaayo dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose waxa ay soo barboosal gareeyeen sharci hoosaad dhigaya in la cusleeyo in la magacaabo gudoomiyaha gobolka waxayna baas gareeyeen sharciga in marka madaxweynuhu uu magacaabayo gudoomiyaha gobolka inuu geeyo golaha wasiirada isagoo la tashanaya xubnaha baarlamaanka ka soo jeeda gobolkaas ka bacdina uu madaxweynuhu xeer ku soo saaro nasiib darro qodobkaas madaxweynuhu uu jibiyay markii horena sababta loo sameeyay waxay ahayd shilkii hore isagoo uu ka dambeeyay markuu dhacay inaysan mar dambe taasi nagu dhicin waa ka xumahay mar labaad ayaa dhacday haddii qodobkaasi uu sii socdo waxay oo ku tumashada dastuurka ah wuxuu keeni karaa wax la yiraahdo impeachment ama madaxweynaha in lagu qaado qodob uu xafiiska uu ku faarujinayo marka waxaan soo jeedinaa in la ilaaliyo amniga iyo xasiloonida waxa meesha yaala waa dastuur waxaan isku haysanaa waa dastuur wuxuu leeyahay tafsiir waxaan qabnaa marjac waxaan qabnaa dawlad federaal ah waxaan qabnaa maxaan ku raahdaa garyaqaano waxaan qabnaa maxaan ku raahdaa hay'ad dastuuri ah
oo waaweyn oo capacity u leh inay war ka soo saaraan arrimahaas sida darteed waxaan mar labaad u soo jeedinaa baaq dawladda Soomaaliya inay si degdeg ah u soo farageliyaan hadda la joogo xaaladdu way cakiran tahay waxa is hor fadhiyo ciidamo qaarkood ay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda oo la adeegsanayo oo loo adeegsanayo dagaal aan sharci ahayn sida darteed in si degdeg ah lagu soo farageliyo aad iyo aad ayaan uga xumahay shaqooyinka noocaas ah waanu ka hadalnay annagu dhinaceena amniga inaan sugno inaan cid ku xadgudbin inaan tallaabo sharci darro la qaadin hase yeeshee madaxweynuhu wuu nala garan laayahay arrintaas wuu degdega aanu ma garanayno sababta uu degdegayo waxaan ka warsugeynaa baaqeena ku wajahan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan wali ku taaganahay mowqifkeennii ahaa in interpretation laga sameeyo maxaa la dhahaa dastuurka iyo xeer hoosaadka dawlad goboleedka Hirshabeelle ee maamulka gobolada iyo degmooyinka wuxuu dhigaa qodobkiisa 30aad farqadiisa koowaad waxay dhigeen marka la magacaabayo gudoomiyaha gobolka in la keeno golaha wasiirada iyada oo laga maxaan ku raahdaa tashanayo xubnaha golaha wasiirada gobolkaas ka soo jeeda arrinkaas madaxweynuhu waa uu ku fashilmay mana sameyn wuxuu ku tantay si toos ah dastuurka waxaan leenahay dastuurka la ixtiraamo isaga ayaan isku xukunaa isaga ayaan madax isku nahay haddii isagu meesha ka baxay waxa dhacay waxa damaanta dhacay oo kale sida darteed waxaan soo jeedinaa ciidamada gobolka in qolo kasta meesha fadhiso in qolo kasta ay xasiloonida ilaaliso in fariisamadooda ay ku ekaadaan ciidamada dawladda maxaan ku raahdaa qaarkood ay ka qayb qaadanayaan xasilooni darrada meesha ka socoto oo loo adeegsanayo waxyaabo hadda aanan halkan ka sheegi karin oo munaasab ahayn oo loo isticmaalayo lacago inaysan waxaas shaqeynin annagu kaliya waxaana deeqa waa dastuurka waxaana deeqa waa sharciga uma baahna xasarad uma baahna qabqab meeshan sharciyada ayaa taalla sharciyadaas ayaana ku kala baxaynaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan soo dhaweynaa nabadgelyada waxaan soo dhaweynaa xasiloonida in la ilaaliyo ciidamadu inay kala joogaan goobahii joogaan wax walbana waa sidoodii waad aragtaan sida maxaan ku raahdaa aan uga shaqeynay aan u xasilinay arrimahaas oo aan isleenahay runtii haddii dhinaceena aan xasilooni badan ka jiri lahayn dhibaato intaan ka badan ayaa dhici lahayd aad ayaa u mahadsantihiin